بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مeel kastoo aad joogto ood muuqaalkan ka daawanayso magacaygu waa maxamed cabdulaahi aadan mar kale waxaad kasoo dhawaataan barnaamijyadii aad halkan uga barateen maantana barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay dhinaca kaamirooyinka marka muuqaalkan aad dhamaysato inaad kala fahmi doonto lensiska noocyadiisa iyo mid walba ku shaqeysa inaad kala barato lens kasta waxa ku qoran sumado markaad fiiriso waxyaabo badan halka ugu qoran xaraf kasta oo halka ku qoran macno gaar ah uu leeyahay oo u baahan in marka la ogaado kaamiradaha ay soo saarto Canon waa laba nooc markay noqoto DSLR-ka mid waa midaan oo la yiraahdo full frame-ka midna waa midaan oo la yiraahdo crop sensor maxay ku kala duwan yihiin sida u jeedo waa kala yar yihiin tan weyn mid la waxay kala duwan yihiin midaan waa full frame taa macnaheedu waxay tahay waxa ku jira masawir qaade ama sensor weyn tanna waa crop sensor crop erga ah waxa la yiraahdaa wax marka la yareeyo markaan sida u fahanay in laba kaamiro ama laba nooc oo kaamiro ah ay soo saartay shirkadda Canon markay noqoto DSLR-ka waxaan ka hadlaynaa markaan lenseska qaar waxa la yiraahdaa EF midna waxa ku qoran isla labadaas xaraf EF laakiin waxa raacsan xarafka S ayaa raacsan cilada marka dadka inta badan ku timaado waxay tahay markii aadan labada calaamadood kala fahmin aadan kala aqoonin waxa dhacaysa in kaamiradaada aad u soo iibiso lens qaldan oo aysanba ku xurmaynin tusaale hadda lenskan sida u jeedo waxa la yiraahdaa 18 to 200 ayaa ku qoran macnaha waa cabirkiisa waa inta laakiin halka markaad eegto waxa ku qoran EF deetana waxa ku qoran calaamada S ayaa raacsan taa waxay ka dhigan tahay in lenskan uusan ku xurmaynin kaamiradan full frame looguma talgal haddaan damco inaan ku xiro kuma xirmi karto taa way marka ciladan rabnaa inaan isla xalino waxaad u baahan tahay inaad haysato lenska loo yaqaano EF bas ay ku qoran tahay oo S aan raacsanan sida midda oo kale inaad soo gadato ayaa u baahan tahay taa ayaa ku xirmaysa halkan marka taa waa isla garan Soomaa waxaan ka hadlayaa full frame-ka inta aan dhigno tan waxaan u soo noqonaynaa midda crop sensor-ka aan niri sida ADD 90D kaamirooyinka noocaas oo dhan aad haysataan oo inta badan dadku ay isticmaalaan oo tan hadda ay ka mid tahay ADD ay ku qoran tahay maxaan niri waa crop sensor full frame ma ahan waxa loogu talagalay fududayn way fududahay way ka fududahay way ka yar tahay sidoo kale lensiskooda waa ka qafiifsan yihiin lensiska kale loogu talagalay lensiskan EFS ay ku qoran tahayna kuwan ayaa loogu talagalay waxaadna ku ogaan kartaa hadda marka afkan aan furo aan haddaan halkan ka furo oo aan ka bixiyo lenskan oo lenskan aan soo qaadno loogu talagalay EF-ka ah ogow waa EFS weeye S aan raacsan markaad halkan eegto qaybtan markaad eegto halkan waxaa ku sawiran laba dhibcood midna way caddahay midna way castahay ama way gaduudan tahay labadaas dhibcood waxay ka dhigan tahay in kaamiradaha crop sensor-ka ah ee tan ay ka mid tahay inay ku shaqaynayaan laba lenses inay ka shaqaynayaan labada nooc oo lenses ee Canon soo saartay labadaba ama full frame-ka mid loogu talagalay ha noqoto ama midda noocan oo kale ah ee EFS ta ha noqoto labadaba waa loogu talagalay way ku shaqaynaysaa waxaan ku ogaan kartaa laba dhibcood ayaa halka ku sawiran dhibicda cadaanta ah waxay u taagan tahay lensiska EFS ta ay u taagan tahay oo halka waxa uga jeedaa dhibic cadaan ah ayaa halkan ku qoran markaad lenskaaga aad eegto marka taa waxay tahay markaad rabto lens kaamiradan crop sensor-ka ah ee aan full frame-ka ahayn markaad rabto inaad ku xirto EFS markaa ku xirto waxaad isku aadinaysaa cadaanka dhibicda cadaanka ah ee lenska ku sawiran iyo dhibicda cadaanka ah ee ku sawiran kaamirada ayaad isku aadinaysaa markaad isku aadisana way ku xirmaysaa taas waxa weeye kaamiradaha crop-ka haddaad rabto kaamirada crop-ka ah inaad u isticmaasho lens loogu talagalay full frame-ka loogu talagalay oo ah tii aan niri EFS aysan raacsanayn ee ah EF bas ah waxaad ku aadinaysaa waxa ku sawiran ayadana calaamad gaduud ah ama casaan ayaa halkan uga sawiran lenska kaamiradiina waa anagii aragnay way ku sawiran tahay ayadana waxa ku aadinaysaa qaybta gaduudka ah ayaa ku aadinaysaa deetana marka sida ugu aadiso waxaad sugaysaa ilaa aad ka maqasho dhawaqas ilaa aad ka maqasho taa macnaheedu waxay tahay waa ku xirantay hadda marka midaan EFS ta ah aan furno sida u jeedo afkeeda waa yar yahay labada lens aan rabaa inaan isku ka barbar dhigo si aad u aragto farqiga u dhaxeeya waxa weeye tan afkeeda wuu yar yahay sida u jeedo waxaana afka uga xiran ramal ama waxa ku xiran injir ayaa ku xiran afka halka tan afkeeda uu weyn yahay
maadaama ay kala weyn yihiin Canon way fakartay waxay samaysay fikir ah in ay gudahana ay ramalkii ku samayso korkana ay ku samayso birta ay ku samayso si ay ugu shaqayso labada kaamiraba ay ugu shaqayso oo ah midda full frame kan ay ku shaqayso middan crop kan ay ku shaqayso laakiin middan EFS ta ah oo loogu talagalay kaamirooyinka crop ka ah cag baa ku xiran taa marka waxay tahay uma samaysna waxaa jira marka lens ka loogu talagalay full frame ka loogu talagalay iyo sidoo kale crop kan ay ku xirmi karto labadaba loogu talagalay oo Canon soo saartay waxaa la yiraahdaa ka lenskaas sida u jeedo ay isaga mid ka yihiin waxaa korka uga xardhan calaamadaas garangartaas guduud ah ayaa korka uga xardhan taa labadan lenses way isaga mid midan sida u jeedo halkan u maleemayo in qoraalka arki karto laakiin mid walba waxa ku qoran tan waa 2470 way midana 70 to 200 tan halkay ku dhamaato bay tan ka bilaabataa labadan lenses waxay kamid ahaayeen lenseska ugu qaalisanaa ee ay Canon soo saarto ayay kamid ahaayeen waxaana loo wada yaqaanaa oo ay ka tirsan yihiin group la oran jiray L series la oran jiray marka waa lenseska ugu fiican tayo markaan fiirino haddana laakiin waa qaalisan yihiin oo lacagtoodu ma yara waxay ku fiican yihiin lenskan inaad u isticmaasho labada nooc ee kaamirada haysato muhiim ma ahan mar walba way ku shaqaynayaan ama crop ha ahaato ama full frame ha ahaato labadaba way ku shaqaynayaan su'aasha isweydiinta badan waxay tahay marka lenskee gata markay imaanayso waxaa ka horeysa kaamirada haysata haddii aad haysato full frame haddaa haysato waxaan ku oran lahaa ka fogow inaad iibsato lenska noocan ah ee EFS ka ah ka fogow ha gadanin laakiin haddii aad haysato kaamiro aan full frame ahayn labada lens waa gadan kartaa marka intaanan ka bixin qaybtan waxaan rabaa inaan markaan isla fiirino maxaa laga soo gaabiyey xarfahan EF iyo EFS maxaa laga soo gaabiyey EF waxay u taagan tahay E-da waxay u taagan tahay electro wax la yiraahdo F-tana waxay u taagan tahay focus ay u taagan tahay laakiin middan oo loogu talagalay cropta ee S raacsan tahay S-taas waxay u taagan tahay short ay u taagan tahay ama yaraan sababta short loo dhahana waxay tahay markaan furno sensorka iyo lenseska afkiisa inta u dhaxaysa masaafada u dhaxaysa ayaa yar saas darteed waxa loo yiri short loo isticmaalaa ama erga yaraan loo isticmaalay sidaas darteed marka waxa loo yiri inay tahay EFS inay yihiin lenskaas